Ku soo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaasha labada aqal Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo weliba ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shalay ku dhawaaqay in ay mushaarkooda bishan uga qayb qaadanayaan gurmadka fatahaadaha dalka oo saameyn weyn ku yeeshay magaalooyin badan tan iyo shalay waxaa baraha bulshada ka socday hadalhayno kala duwan iyo su'aalo ku saabsan inta uu gaarsiisan yahay mushaarka madaxdaani iyadoo dadweynaha ay ku cabirayeen heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada ka dhalatay fatahaadaha iyo daadad kale oo roob ka rogmaday kuwaasoo barakiciya qoysas badan shabakada Sirta Media ayaa baaritaan ku samaysay inta uu gaarsiisan yahay mushaarka madaxda dowladda kaas oo loogu deeqay dadka ay dhibaatada ka soo gaartay fatahaadaha Soomaaliya shabakada Sirta Media ayaa la hadashay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin xilal kala duwan soo qabtay ayaa shabakada Sirta Media u sheegay in mushaarka madaxweynaha uu yahay 10,000 oo doolarka Mareykanka ah halka gudoomiyaasha labada gole iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay intaasi ka sii yar yihiin xildhibaan Maxamed Xasan Idriis ayaa sheegay in mushaarka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu la isku daray uu ka yar yahay 20,000 oo doolarka Mareykanka mushaarka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo la isku daray waa ka yar yahay 20,000 oo doolarka Mareykanka labada gudoomiye waa ka sii yar yihiin mana ahan wax dhibaatada maanta jirta looga yabooho iyadoo garoome iyo magaalooyin lagu bixiyo boqolaal kun oo doolarka Mareykanka sidaasi waxaa yiri xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka shabakada Sirta Media ayaa sidoo kale ogaatay in hadda uusan jirin mushaar sax ah oo ay qaataan madaxdan oo ku qoran dastuurka dalka ama xeerka kale ee dalka oo markii hore lagu cadeyn jiray waxaa soo gashay lacaga boqolaal kun oo doolarka Mareykanka halka qaarkoodna ay ku xisaabtamaan malaayiin doolar sida ay noo sheegeen mas'uuliyiintii aan la hadalnay oo qaarkooda ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dhanka kale ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa habeen hore dhagxaan ku xiray xaafado ku yaala waqooyiga magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah wadada Sodonka ee gobolka Banaadir qaar ka mid ah shacabka degmada Kaaraan ayaa bilaabay inay iska qaadaan dhagxaantaasi iyagoo aan ogeyn sababta loo keenay halka qaar kale oo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ay isweydiinayaan sababta halkaasi loo xiray dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay waxay bahda saxaafadda la xiriirtay mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha ammaanka Soomaaliya si ay wax uga ogaadaan wixii keenay in wadooyinkan cusub la xiro dadka ay warbaahinta la xiriirtay oo ka koobnaa booliiska mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga iyo xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay waxa uu yahay qorshe cusub oo loo dejiyay ammaanka Muqdisho ayaa dhigaya inta u dhaxaysa wadooyinka wadnaha iyo Sodonka in laga sameeyo baaritaano lagana dhigo kuwa xasiloon muddo kooban gudahood kadibna la qaado dhagxaanta taala wadada wadnaha taasoo ka dhigan in la durjin doono halka ay magaalada ka kala xiran tahay sidaas waxaa yiri mid ka mid ah dadka aan la hadalnay hadda waxaa muuqatay in laga guuleystay al-shabaab waxaana aad u yaraaday qaraxyadii iyo dilalkii waxaana xaafadaha laga sameeyay dhalinyaro dharcad ah oo amniga ka qayb qaata sidaas oo kale ayaa la rabaa in xasilooni lagu soo dabaalo xaafadaha u dhaxeeya wadnaha iyo Sodonka iyadoo si adag loo xirayo wadooyinka ayuu yiri qof kale oo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo la hadlay shabakada Sirta Media saraakiisha ammaanka iyo dad kale oo xog ogaal u ah arrintan ayaa sheegay in haddii sidaan la sameeyo uu aad u yaraan doono dhibaatada xirnaanshaha wadooyinka lagala kulmo maadaama ay gudaha soo galayaan labada suuq ee ugu weyn Soomaaliya sidoo kalena ay tahay guul kale maadaama xasilooni lagu soo dabaalayo amniga magaalada inkastoo ay jiri doonaan cabashada iyo dhibaatada kale ay wajahayaan dadweynaha reer Muqdisho dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo xiriirka dowladda iyo ahlu sunna ee maamul sameynta Galmudug wuxuuna soo bandhigay 4 qoraal oo ahlu sunna ku baahiyeen baraha bulshada isagoona jawaab culus ka bixiyay wuxuuna qiray in uu jiray heshiis ahlu sunna iyo dowladda federaalka galeen kaasoo loogu balan qaaday ahlu sunna in 35 xubnood laga siin doono baarlamaanka cusub ee Galmudug laakiin ay arrintaasi u taalo odayaasha Galmudug oo aysan ahlu sunna sugin xilliga arrintaasi la dhameyn lahaa wasiir Cabdi Maxamed Sabriye oo bulshada reer Galmudug kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayuu qodob uga jawaabay qoraalada iyo talaabooyinka ahlu sunna isagoo ku eedeeyay inay isku qasayaan Galmudug iyo ahlu sunna isla markaana qoraalkay u direen beesha caalamka uu ahaa mid meelo kale laga waday dhanka kale madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland oo lagaga hadlay qodobo kala duwan ugu horreyn waxaa golahu ay ka doodeen arrimaha doorashooyinka qaranka gaar ahaan guddiga ku-meel gaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka dalka oo dhowaan la tashi ugu yimid deegaanada Jubbaland hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo bulshada ayay la kulmeen waxaana isku raaceen in ay muhiim tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo waqtigeeda ku dhacda isla markaana fariintii dowladda iyo shacabka Jubbaland ay guddiga u dhiibeen
ay taasi ahayd ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo xafiiska Axmed Madoobe ka soo baxay. Goluhu waxay ka hadleen xaaladda fatahaadaha iyadoo wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Warsame Darwiish laga dhageystay saameynta ilaa ay hadda ka dhalatay iyo qorshaha wasaaradda ee sidii gurmad loogu fidin lahaa. Wasiirka wuxuu xusay in gurmadka laga sameeyay meelaha qaar guul weyn laga gaaray isla markaana qorshe weyn oo mustaqbalka arrintaani lagu wajahay u baahan tahay. Wasaaradda caafimaadka ayaa soo bandhigtay in guud ahaan deegaanada Jubbaland laga furay 4 xarumood oo waaweyn kuwaasoo wax badan ku soo kordhinaya adeegyada caafimaadka ee bulshadu u baahan tahay. Waxaa kale oo la furay 24 xarumood oo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka ayaa lagu yiri war-saxaafadeed shirka golaha wasiirada ka soo baxay. Wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa sharaxaad ka bixisay hanaanka badqabka xoolaha iyo talaalkooda oo ka socda guud ahaan Jubbaland, iyadoo hadda shaqada ugu badan ay gabagabo ku dhowdahay dhammaan deegaanada Jubbaland la gaarsiiyay talaalka xoolaha ayaa lagu yiri warbixinta wasaaradda. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo shalay loo doortay inuu noqdo hogaamiyaha isbahaysiga madasha xisbiyada qaran ee loogu dhawaaqay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay qorshe ay dowladda Soomaaliya la damacsaneed madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Sheekh Shariif ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay damacsan tahay isla markaasna ay tijaabisay in Axmed Madoobe la soo qabto xarigiisana loo adeegsaday ciidamo ajnabi ah sidoo hadalku dhigay. Sheekh Shariif ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya isku daygaasi samaysay ka hor inta aysan dhicin doorashadii ka dhacday Kismaayo ee mar kale xilka madaxweynenimo ee Jubbaland loogu doortay Axmed Madoobe. Wuxuu sheegay in tallaabadaasi ay fashilantay isla markaasna ay suurtagali weysay inkastoo uusan faahfaahin ka bixin qorshahaas iyo ciidamada ajnabiga ah ee la adeegsan rabay, iyadoo la rumaysan yahay inuu ula jeeday ciidamada Itoobiya ee ka tirsan howlgalka midowda Afrika ee AMISOM. Hawsha intaasi way ka sii dheer tahay. Aniga waxaan rabaa inaan caddeeyo, mala socotiin in ciidamo ajnabi ah la rabo in lagu qabto Axmed Madoobe, mala socotiin hadda ka hor markii ay doorashada dhacaysay. Sidoo kale wuxuu sheegay in haddii arrintaasi ay dhici lahayd ay keeni lahayd dagaal qabiil oo dib kaga bilowda Soomaaliya kaasoo socon lahaa muddo 100 sano ah siduu hadalku dhigay. Arrintaas haddii ay dhici lahayd maxaa dhici lahaa? Dagaal qabiil oo aan weligiis dhammaan oo 100 jirsada ayaa dhici lahaa ayuu yiri. Wuxuu sheegay in xisbiyada mucaaradka aysan ka aamusi karin waxyaabaha iyo qaladaadka kale oo ay samaysay dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ma idin la tahay inaan ka aamusi karno? Kama aamusi karno ayuuna sii raaciyay. Dhanka kale xisbiga wadajir ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shalay ka haray ka mid noqoshada madasha ay ku midoobeen qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira si ay isaga kaashadaan duruufaha dalka ka jira iyo doorasho xor ah oo dalka ka dhacda. Cabdiraxmaan ma uusan sheegin sababta uu xisbigiisa uga haray madasha xisbiyada, inkastoo xubno ku dhow laga soo xigtay in aysan jeclaysan qaabka wax loo wado, balse warar ay heshay shabakadda Sirta Media ayaa sheegaya in ay sababeen ilaa 4 arrimood oo gaar ah. Xubno ka tirsan xafiisyada madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noo sheegay in duruufahan ay sababeen diidmada hogaamiyaha xisbiga wadajir. duruufahaas oo loo qaybiyay ilaa 4 qaybood ayaana waxa ay kala yihiin: 1. xisbigu waxa uu ogaaday in tartanka ugu adag ee siyaasadda Soomaaliya uu hadda u dhexeeyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo hoggaanka dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, sidaas darteedna ay door bideen in ay isu soo abaabulaan awood gaar ah oo saddexaad. 2. xisbiga wadajir waxa uu isku dayay in uu hoggaan ka noqdo madasha maadaama Shariif iyo Xasan ay leeyihiin awood siyaasadeed iyo saameyn kalaba, isla markaana ay halkaasi ku ilaaliyaan magaca iyo saameynta xisbiga wadajir, balse ma dhicin. waana sababta labaad oo ay uga baaqsadeen ka mid noqoshada madasha qaran. 3. sidoo kale madaxda xisbiga wadajir ayaa uga baaqday madasha in haddii ay ka mid noqdaan uusan xisbigooda gooni u hadli karin, waxna u dhaliili karin, isla markaana uu noqon doono mid ku xiran xisbiyada kale. haddii ay arrintaasi dhacdana waxaa wararka soo baxa ama khudbadaha la jeediyay saameynta ugu badan yeelan doona madaxweynayaashii hore ee dalka, kuwaasoo laga yaabo in ay ku bataan warbaahinta iyo baraha bulshada. sababta afraad ayaa lagu sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu arkay in madasha ay ku badan yihiin oo keliya xisbiyo hogaamiyaashooda isu dhow yihiin qoys ahaan iyo in yar oo doonaya in ay ku dabafiilmaan oo aad u yar tahay rajadooda. ma jiro war cad oo ka soo baxay xisbiga wadajir oo ku saabsan sababtay ugu baaqdeen, balse waxaa jira qoraale ay qaarkooda soo dhigeen baraha bulshada, isla markaana ay ku sheegeen in ay waddo sax ahayn loo maray madasha dhismaheeda. guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.